dalka Soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska Afrika oo ah goob istiraatiiji ah kaabiga ku haya suranka Baabul Mandab ee isku xira badweynta Hindiya iyo Badda Cas ahmiina u leh marinka Suez bariga dhexe iyo bariga fog. taariikh ahaan dalka Soomaaliya waxa uu leeyahay xadaarad fac weyn waxaan loo aqoon jiray magacyada sida dhulkii Uduga iyo geeska Afrika. diinta Islaamka waxay dhulka Soomaalida soo gaartay qarnigii 3aad ee Hijriyada. taariikhdu waxa ku xusan dagaaladii iyo halgankii dheeraa ee Soomaalida iyo Xabashida ku dhexmaray geeska Afrika. dagaaladaasi waxa tiir dhacad u ahaa halyeegii Imaam Axmed Gurey iyo ciidamadii Soomaalida ahaa ee isagu hogaaminayay oo xaruntooda ahayd Adari. imaamku waxa uu taageero ka haystay dawladdii Cismaaniyiinta oo garatay qatarta ka soo fool lahayd isbahaysigii Boortaqiiska iyo Xabashida. dabayaaqadii qarnigii 19aad waxaa qaaradda Afrika ku soo qamaamay quwadihii reer Yurub. dhulka Soomaaliyeed waxa uu ka mid ahaa dhulka Afrika ee lagu qaybsaday shirkii Berlin 1984. dhulka Soomaaliyeed waxaa loo qaybiyay 5 qaybood oo ay kala saanyadeen gumeystiyaalkii Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashidii oo loo gacan geliyay Soomaali galbeed. gumeystiyaalka la qaybsaday dhulka Soomaalida waxa ay la yimaadeen dhaqamadoodii, diintoodii, shuruucdoodii, xukunkoodii iyo guud ahaan habdhaqankoodii ku salaysnaa dhiig miiradka iyo dhaqan doorinta waxayna bilaabeen inay dadka Soomaaliyeed ku ijbaaraan. arrintaasi waxay ka careysisay dhammaan salaadiinta iyo culamaa diinka iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo ayaga oo isku duuban dagaal jihaad kala hortagay gumeystayaalka iyo dabadhilifidoodii. waxaa xusid mudan ciidamada daraawiishta ee hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo la dagaalamay cadawgii 3 geesoodka ahaa ee Ingiriiska, Amxaarada iyo Talyaaniga guulna ka soo hooyay. halgamayaal kale oo dagaalamay ama la dagaalamay gumeysiga baaldahabna ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed waxaa kamid ahaa Sheekh Xasan Barsane, Suldaan Ol Dinle, Sheekh Bashiir, Nasiib Bunto iyo rag kale oo badan. gumeystayaalka reer Yurub kama xasilin dhulka Soomaaliyeed wixii ka horeeyay 1921 markii la jibiyay ciidamadii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. 1943 waxaa gobolada Koonfureed ka dhashay golihii dhalinyarada SYL oo ka koobnaa 13 dhalinyaro ah kadibna isku bedelay dhaqdhaqaaq wadani ah oo u ololeeyo mideynta xorriyadda iyo madax banaanida dhulka Soomaaliyeed. gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumeysanayay waxaa ka abuurmay xisbiyo u ololeeya midnimada, xorriyadda, madax banaanida dadka iyo dhulka Soomaaliyeed ee uu hormuudka u ahaa xisbigii SNL-ka. 1948 qarumaha midoobay waxay Muqdisho u soo dirtay ergo xaqiiqo raadis ah oo ka koobnayd quwadihii waaweynaa. ergadaasna waxay la kulmeen qallaasay iyo mudaaharaadyo uu dhiig ku daatay. sanadkii 1949 golaha loo dhan yahay ee qarumaha midoobay ayaa ogolaaday in Soomaalidu wasaayo la geliyo loona dhiibo Talyaaniga muddo 10 sano ah. 1 January 1949 ilaa iyo 31 December 1960 si uu ugu diyaariyo xorriyad iyo madax banaani u gaara. Soomaaliya waxa ay leedahay 2 bad oo kala ah badweynta Hindiya, Badda Cas iyo xeeb dheer oo ku dheersan dhul cararsan ah oo ku wanaagsan xoolo dhaqidda iyo labada webi ee Shabeelle iyo Jubba iyo dhul beereed barwaaqo ah. khayraadka uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku maneestay dhulka Soomaaliyeed waxaa kamid ah kalluunka, carsaanyada iyo wixii la mid ah. xoolo nooc kasta ah, geel, lo, ari iyo duurjoog ee leh hilib, caano, subag iyo hargo. dalaga kala duwan oo ay kamid ka yihiin qasabka, sokorta, mooska, suufka, galeyda, sisinta iyo xariirta ayaa kamid ah khayraadka uu Ilaahay dhulka Soomaaliyeed ku maneestay. sanadkii 1956 waxaa dhulka Koonfurta Soomaaliya laga abaabulay doorashooyinkii ugu horeeyay ee xukun hoosaad. waxaana kuraastii loo tartamayay intooda badan ku guuleystay xisbigii dhalinyarada ee SYL. waxaana gudoomiye baarlamaan loo doortay mudane Aadan Cabdulle Cusmaan. ra'iisul wasaarena waxaa loo doortay mudane Cabdullaahi Ciise Maxamuud. allaha u naxariisto dhamaantood. markii uu soo dhawaaday dhamaadkii muddadii wasaayada bishii Abriil sanadkii 1960 Ingiriisku waxa uu ogolaaday in waqooyiga ku biiro Koonfurta. isla bishaasi Abriil waxaa shir isugu yimid madax kala matalaysay Koonfurta iyo waqooyiga
waxayna ku heshiiyeen inay midoobaan oo ay noqdaan jamhuuriyadda Soomaaliya 26 Juun 1960 waxaa madax banaani qaatay waqooyiga maalmo kadibna la midoobay koonfurta oo ay isku noqdeen jamhuuriyadda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogeen waxay u dabaaldegeen una riyaaqeen xorriyadda iyo madax banaanida gaar ahaan kuwa ku haray gacanta gumaysiga waxa u bariyay waa cusub iyo inay ku soo hirtaan jamhuuriyadda dhalatay ma jirin saldhig dhaqaale oo xoog leh laakiin dadka Soomaaliyeed waxay u dareereen shaqo iyo horumarinta dalka nasiib darro madaxdii dalka ee cusbeed kuma guuleysan inay dalka iyo dadka u horseedaan horumar lagu diirsan karo wax yar kadib waxaa soo ifbaxay ifafaalo aan ficneen iyo qabyaaladii oo madaxa la soo kacday iyo eelkeedii xumaa ee dulmiga iyo in la waayay cadaalad bulshadeed iyo in si xaq ah loo qaybsado kheyraadka loona sinaado fursadaha shaqo dadka lama gaarsiin mirihii xorriyadda waxaana laga dilay dareenka ah inay dalka iyagu leeyihiin markii ay baaheen musuqmaasuqa eexda kibir qooqa iyo qabyaaladda lana waayay cadaaladii bulsho ayaa waxaa daciifay kalsoonidii lagu qabay madaxdii hoggaanka haysay waxaa leexday kalsoonidii dadweynuhu ku qabay hay'adaha qaranka 22 Oktoobar sanadkii 1969 waxaa nidaamkii dastuuriga ahaa afgambiyay saraakiil ka mid ahaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo waxay laaleen dastuurkii dalka isla markaana xabsiga u taxaabeen madaxdii dalka ugu sareysay runaantii dadweynaha Soomaaliyeed waxay soo dhaweeyeen isbeddelkaasi iyagoo u arkay rajo cusub golihii sare ee kacaanka waxa uu durbadiiba hirgeliyay mashaariic horumarineed oo loo riyaaqay oo isugu jiray isbitaallo wadooyin dugsiyo biyo iyo afka Soomaaliga oo qoray mashaariic horumarineed waxaa barbar socday tallaabooyin uu goluhu sare ee kacaanka ku xoojinayay awoodiisa kuna caburiyay xorriyadka iyo xuquuqda dadweynaha muddo yar kadib waxaa soo laba kacaleeyay musuqmaasuqii qabyaaladii cadaalad daradii kufisay dowladihii rayidka ahaa oo dulmi iyo fasaad ayaa arlada saaqay waxaa la waayay cadaaladii bulshadeed waxaa cirka isku shareeray shaqo la'aantii oo dadka intiisa danyarta ahaa ayaa afka iyo gacanta isla waayay dhibtii markii ay badatay waxaa dhashay jabhado mucaaradeed oo hubaysan ilaa ay faraha ay ka baxeen ammaankii iyo kala dambeyntii dalka sii ciiriyay waxa uu ku dhaqaaqay tallaabooyin naflacaarimo ah oo rusheen iyo xasuuq ah muqdisho gobolada dhexe iyo gobolada waqooyi ee Hargeysa iyo Burco bishii Janaayo 1991 waxaa la riday xukuumaddii Generaal Maxamed Siyaad Barre waxaana dalka ka dilaacay aafada qabiilka oo la xakameyn waayay shakhsiyaadkii hogaaminayay jabhadihii mucaaradka ee dagaalay oo riday xukuumaddii Generaal Maxamed Siyaad Barre qaarkood waxay ahaayeen wadaniyiin hase yeeshee duruufihii abuurmay iyo gacmo-gacmeyntii shisheeye ayaa arrinta faraha ka bixiyay waxaa burburay qarnimadii iyo midnimadii dadka Soomaaliyeed waxaa kala irdhoobay dadkii isku ahaa ul iyo diirkeed madaxdii dowladdii burburtay intooda badneed mid waliba waxa uu hoos galay reerkii uu ka dhashay hoggaankana uu qabtay door iyo 10 jeer ayaa shirada boysaneed lagu qabtay wadamo isugu jira sokeeye saaxiibo shirarkaasi waxaa inta badan fashiliyay qaabka wax wada qaybsiga oo lagu saleeyay 4.5 ama 4 iyo bar iyo shirarka oo ay ka soo qayb galeen waxna ay ku qaybsadeen dad aysan ka go'in nabadda iyo colaadda midna waayo intooda badan ma aysan matalayn dadka iyo deegaanada ay sheegteen shacabka Soomaaliyeed ma heshiin waayeen waayo waxa uu leeyahay dhaqan fac weyn iyo diin alle xaggiisa laga soo dejiyay waxaase la waayay hoggaan soo bandhiga barnaamij iyo qorshe siyaasadeed oo ka turjumaya baahida iyo rabitaanka dadweynaha Soomaaliyeed ee daacadda ah taasi waxaa tusaale u ah dhacdadii ugub ee ahayd in bishii Juun sanadkii 2006 ay midowga maxaakiimta islaamiga gacanta ku dhigeen taladii Muqdisho midowgii maxaakiimta islaamiga iyagoo oo kaashanaya dadweynaha waxay ku guuleysteen inay muddo 6 bilood ah dalka ay ku soo dabaaleen nabad iyo xasilooni isla marhaantana waxay kasbadeen kalsoonida iyo taageerada dadweynaha Soomaaliyeed dibad iyo gudaba
burburinta maxaakiimta waxaa loo adeegsaday xukuumaddii korneyl cabdullaahi yuusuf iyo dowladda etoobiya oo maraykanka ka gowshaysatay. etoobiya waxay ku soo duushay dalka soomaaliya, waxay meesha ka saartay midoogii maxaakiimta islaamiga, waxayna dalka ka geysatay burburin iyo xasuuq ay la beegsatay dadka soomaaliyeed, iyada oo afrika iyo adduunka kalena ay dhagaha ka furaysteen, indhahana ay ka xirteen.